la socotaan qaraxyada iyo burburka ay geysanayaan qolooyinkan xagjirka ah qolooyinkan argagixisada ah ay ku xalaaleysteen dhiigga shacabkeena ee muslimiinta ee Soomaaliyeed ay ku xalaaleysteen ama ay burburiyaan dunyadeena ay burburiyaan kuwaasi hadday khaldameen oo diinta si khaldan u fasireen haddaa tustaan maxaan ku raahdaa iftiinka tustaan oo aad xaqa tustaan waxaan aaminsanahay shacabkana aad gaartaan in kuwaasi awoodoodu ay yaraanayso 11 sano ya 12 sano la marayaa hadda dalkan intuu dagaal ku jiro dagaalkaas uu yahay dagaal xag jireed dagaal argagixiso ah waxa soo maray 4 maamul oo anigu aan ugu dambeeyo ilaa intee bay si soconaysaa marka waa baaba'een iyaguna annagana waana baabi'iyeen ilaa intee yaan rabnaa inaan gaarno waxa baaba'ayana waa ummad Soomaaliyeed weeye waxa iyaga ka baaba'aya waa wiilasheenii waxa ay baabi'inayaana waa wiilasheenii iyo hooyooyinkeenii iyo carruurteenii iyo dadkeenii haldoorka ahaa yaan u faa'iideynay marka yay u faa'iideeyeen waxa weeye ilaahay hanoo soo hadeeyo ilaahay hanoo soo celiyo idinkuna inaad kaalintaas qaadataan oo aad la dardaarantaan markaad midowdaan waana midaysantihiin ilaahayna idin sii mideeyo waxaan aaminsanahay inay soo noqon doonaan waqti ahaato aysan sugin ilaa iyaguna ay tirtirmaan annaguna dhibaato badan ay noo geystaan ummado kale iyo shisheeye kalena aysan naga faa'iidaysan culummadu doorkoodu waa cad yahay doorkoodu waa saan sheegay waa indhihii ummadda Soomaaliyeed iyo indhaha guud ahaan muslimiinta caalamka in aad si sax ah oo wanaagsan oo runtii nidaamsan aan u wada shaqeyno cadowgaas na wada haysta oo cadowgaasna na wada dhibaya oo dhibka nagu hayana aan isku meel uga soo istaagno